waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamida ciidamada gaarka ee loo xil saaray amniga magaalada Muqdisho oo soo qabtay shabakad ururka al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada iyo weerarada caasimadda magaalada Muqdisho ciidamada oo howlgal ballaaran ka sameeyay ayaana dhinaca kale waxa ay jawaab culus ka bixiyeen weeraradii hoobiyaasha ee ururka al-shabaab ay ku garaaceen xayndaabka madaxtooyada iyagoo soo qabtay dad aad u tiro badan oo looga shakaysan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka NISA oo loo haysto laba arrimood oo waaweyn iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan Mahad Salaad uu uga jawaabo labadaasi arrimood ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka oo lagu eedeeyay fadeexad la yaab leh oo ku aadan in hubkooda iyo waliba rasaasta ay ku iibsadaan qaadka iyadoo markaasi ay hubkaana loo iibgeeyo ururka al-shabaab xilli dagaalada ka socda gobolada lagu jabiyay ururka al-shabaab isla markaana ay kala kulmeen guul darro aad u weyn ciidamaduna ay gacanta ku dhigeen deegaano iyo waliba degmooyin waaweyn oo ururka al-shabaab ay dhowr iyo 10 sano gacanta ku hayeen howlgallada ka socda deegaanada Jubbaland oo si xoogaystay ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland iyo kuwa dawladda oo howlgallo ku laayay maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab gacanta ku dhigay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose shirka culimadiinka iyo dawladda federaalka uga socda magaalada Muqdisho oo lagu shaaciyay dawladaha ururka al-shabaab lacagaha siiya iyo danaha ay kale yihiin iyo sidoo kale diintu waxa ay ka aaminsan tahay ururka al-shabaab iyagoo baaq u diray shacabka Soomaaliyeed qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahinaya daawadayaal warkeena kaga boga doontaan haduu beedmo balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh ka codsanayna hadduna soo gaaro muuqaalka like saar oo share gareeyo oo la wadaaga saaxiibadiina kale mahadsanidin aynu ku bilownay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxa ay la dhacaysay weerar joogto ah oo kaga imaanayay ururka al-shabaab iyadoo ururka al-shabaabna ay bartilmaameedsanayeen goobaha ay dadka shacabka iskugu imaadaan iyo waliba goobaha loogu adeego dadka shacabka ee ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta u adeegaya shacabka Soomaaliyeed weeraradii ugu dambeeyay ururka al-shabaab ay ku qaadeen xarumaha dawladda goobaha loogu adeego shacabka iyo waliba xayndaabka madaxtooyada ayaana argagax weyn ku dhaliyay qulubta shacabka Soomaaliyeed iyadoo ciidamo gaar ah lagu wareejiyay amaanka magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay amniga magaalada Muqdisho waxa lagu wareejiyay oo hagahayay ciidamada nabad sugidda ee dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo tuhno weyn la xiriirinayo in ay iyagu qayb ka yihiin ayna u fududeeyaan kooxaha ururka al-shabaab ee weerarahaya goobaha sida weyn loogu ilaalinta badan yahay isla markaana ay ku sugan yihiin mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadaasi oo tuhno weyn iyo waliba tashuush lagu furay ayaana waxa lagu wareejiyay amniga magaalada Muqdisho ciidamada gaarka ee loo yaqaan Duufaan oo qayb ka ah ciidamada nabad sugidda maalmo dhowna lagu daray ciidamadaasi ayaana howlgal ballaaran ka bilaabay degmooyinka gobolka Banaadir iyo guud ahaanba gudaha magaalada Muqdisho iyagoo waliba howlgalkaasi ugu magac daray guriba guri waxayna arintaasi soo baxday kadib markii ururka al-shabaab ay hoobiyaal shalayta ku garaaceen xayndaabka madaxtooyada weeraradan ururka al-shabaab oo si joogto ah ugu soo badanayay magaalada Muqdisho ayaana shacabkan iyo jab iyo waliba argagax weyn qulubtooda ku dhaliyay aala badan saacadihii ugu dambeysay ay ka imaanaysay taasi oo waliba looga codsanayay xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo oo ay jiraan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab isla markaana fududeynaya weerarada ururka al-shabaab ay ku qaadayaan xarumaha dawladda dadka shacabka goobaha iskugu imaadaan iyo waliba xarumaha sida weyn loo ilaaliyo ee ay adag tahay in qof walba uu galo ciidamada gaarka ee Duufaan ee hadda lagu wareejiyay amniga magaalada Muqdisho ayaana saacadihii la soo dhaafay howlgal ballaaran ka sameeyay gudaha magaalada Muqdisho waxa ayna soo qabteen shabakad isku xidhan oo ururka al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada weerarada joogtada ee magaalada Muqdisho dhanka kale waxa ay sheegeen in howlgalkani uu sii socon doono muddo inta laga soo afmeerayo ama laga soo afjarayo kooxaha ururka al-shabaab ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho saraakiisha hogaaminaysa howlgalladaasi ayaa shaaca ka qaadeen inay gacanta ku hayaan shabakad xoogan oo ahayd shabakadii ugu weyneed ee ururka al-shabaab ee dhibaatada xoogan ka waday gudaha magaalada Muqdisho iyagoo dhanka kalena agagaarka madaxtooyada howlgal laga sameeyay lagu soo qabtay dad aad u tiro badan oo markaasi wali aan la kala cadeynin isla markaana baaritaan oo ku socdo kuwaasi oo la xiriirinayo in ay qayb ka noqon karaan weerarada lagu soo qaadayo madaxtooyada Villa Soomaaliya dhanka kale weerarkii lagu soo qaaday xarunta gobolka Banaadir ayaa shaki weyn iyo waliba hadal hayn weyn ay ka dhalatay iyadoo saraakiisha baaritaanka u xil saarnaa ay shaaciyeen in gacanta lagu hayo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse isla markaana qayb ka ahaa fududeynta iyo gelitaankii kooxihii soo galay xarunta gobolka Banaadir ee ka tirsanaa ururka al-shabaab saraakiil kale oo ayagana ku sugnaa baraha control ee laga soo galo xarunta ayaana xabsiga loo taxaabay halka kuwa kalena su'aalo lala yeelanayo isla markaana lagu daba jiro oo
baaritaan lagu hayo. Mas-uuliyiin sarsare iyo weliba siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalka ayaana u soo jeedinaya baaq ku aadan in dowladda federaalku ay baaritaan xooggan lagu sameeyo shaqaalaha dowladda iyo weliba saraakiisha ciidamada iyo taliyayaasha, iyagoo ay sheegeen in loo baahan yahay in baaritaankaasi lagu kala cadeeyo xubnaha ururka al-shabaab la shaqeeya iyo weliba xubnaha markaasi iyagu cadaaladda ugu shaqeeya shacabka Soomaaliyeed, iyadoo dhanka kaleeta ay sheegeen isbedelkii siyaasadeed ee ka dhacay dalka Soomaaliya in uu u horseeday in ururka al-shabaab ay xubno sarsare oo iskugu jira wasiiro, ku-xigeenno, agaasino iyo weliba shaqaale hoosaad ay ku yeeshaan dhisitaankii dowladda iyo isbedelkii siyaasadeed ee ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. dhanka kale weeraradii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa iyadana loo haystaa oo su'aalo la rabaa in laga weydiiyo taliyaha hay'adda sirdoonka ee qaranka Nisa Mahad Salaad. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ayaana u soo jeediyay taliyaha Mahad Salaad laba qodob oo kala ah in uu xilka wareejiyo iyo in uu markaasi uu wax ka bedelo hab socodka iyo amni darrada ku soo badanayso magaalada Muqdisho una la imaado ajanda looga hortagi karo weerarada iyo qaraxyada ururka al-shabaab ay ku waxyeeleynayaan shacabka Soomaaliyeed iyo amni darradan looga gudbi karo ka taagan magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa dhinaca kale waxa uu xusay in ururka al-shabaab looga taagroonaday dagaaladii ka socday gobolada, isla markaana loo baahan yahay in istiraatiiji wanaagsan laga qaato magaalada Muqdisho oo ayagu u noqotay gabaad kuwii ka soo cararay dagaalada ka socda furimaha hore ee dagaalka iyo gobolada dalka Soomaaliya. madaxweynaha oo marar badan loo soo jeediyay in taliye Mahad Salaad uu xilka qaadis ku sameeyo, isla markaana uusan cilmi iyo weliba aqoon toona u lahayn hagitaanka hay'adda sirdoon ee awoodda badan ee la rabay in ay fashiliso qaraxyada, weerarada, dhagaraha ururka al-shabaab ay u maleegayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu garwaaqsaday eedeymihii loo soo jeedinayay in ay dhab ahaayeen, isla markaana ay tahay meesha ugu jilicsan ee markaasi hadda loo baahan yahay in laga dhuujiyo amniga magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa dhanka kala xusay in hay'adda sirdoon loo baahan yahay in ay iyadu ay ka hortagto ayna ogaato ururka al-shabaab dhagaraha ay doonayaan in ay ku soo qaadaan ka hor inta aysan dhicin ee aan lagu soo weerarin shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. waxaa dhinaca kale uu xusay in ururka al-shabaab marka hore ay iyagu waxaan ka soo maleegaan gobolada iyo deegaanada ay ku sugan yihiin, kadibna loo soo dhaadhiciyo caasimadda dalka Soomaaliya si loo dhameeyo shacabka caasimadda ku sugan iyo mas'uuliyiinta u adeegaya shacabka Soomaaliyeed. hadalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaana u muuqda mid mas'uuliyadda amni darrada ku soo badanaysa magaalada Muqdisho oo dusha u saaray taliyaha hay'adda sirdoonka ee qaranka Nisa, waana eedeymihii loo soo jeedinayay oo dad badanina ay aaminsan yihiin in qaraxyada iyo weerarada ka dhacaya xarumaha sida weyn loo ilaaliyo ee dowladda federaalka iyo mas'uuliyiintu ay ku shaqeeyaan in uu qof weyn oo mas'uul sare ah uu hagi karo, taasi oo inta badan shacabka Soomaaliyeed ay rumaysan yihiin in taliyaha Nisa uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab, isla markaana isagu uu qayb ka yahay fududeynta weerarada madaxtooyada lagu qaadayo iyo weliba xarumaha kale ee wasaaradaha dowladda federaalku ay ku shaqeeyaan. ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa loo jeediyay fadeexad la yaab leh oo ku aadan in hubkooda iyo weliba risaastooda ay ku iibsadaan qaadka. dadka ganacsatada ee markaasi qaadka ka ganacsada ee geeya furimaha hore ee dagaalka ayaana la sheegay in iyagu markaasi qaadka kaga bedelanayaan risaasta iyo hubka, kadibna ay u iibgeynayaan ururka al-shabaab. arrintani ayaa mar hore soo baxday, balse dowladda federaalku jawaab kama aysan bixinin, waxaana la ogaaday in risaasta ugu badan markaasi ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka ay iibiyaan oo ay ka iibsadaan dadka markaasi qaadka ka ganacsada, kadibna kuwa qaadlayaasha ay u iibgeeyaan kooxaha ururka al-shabaab oo iyagu hadda aan haysanin goob markaasi uga soo dego hubka iyo weliba risaasta, isla markaana dagaal xoogan lagula jiro xarakada al-shabaab oo la ogsoon yahay in laga go'doomiyey goobihii badda ee waxay ka soo dejin jireen, isla markaana laga qabsaday magaalo xeebeedyadii intii badnayd. kadibna ururka al-shabaab istiraatiijiyadda ay degeen ay tahay meesha kaliya ee u fudud ee markaasi ay hub iyo risaas ay ku heli karaan in ay tahay in qaadlayaasha ay heshiis la galaan, kadibna qaadwadayaashu ay markaasi maandooriyaha ay kaga iibsadaan ciidamada dowladda ay kaga bedeshaan rasaasta iyo hubka noocyadiisa kala duwan, kadibna ay u iibgeeyaan kooxaha ururka al-shabaab iyagu baahi weyn u qaba in ay hub iyo risaas ay helaan maadaama dagaalo ay kaga furan yihiin deegaano aad u tiro badan.
dhanka kale maamulka Jubbaland ayaa wada howlgal ballaaran oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku dhawaaqeen kaasi oo ka dhana ururka al-shabaab ciidamada daraawiishta ee maamulka Jubbaland iyo kuwa dawladda federaalka oo iskarabsanaya ayaana gacanta ku dhigay deegaano badan oo hoostaga gobolka Jubbada Hoose oo markaasi ururka al-shabaab ay gacanta ku hayeen sanadihii ugu dambeeyay saraakiisha ciidamada daraawiishta ee maamulka Jubbaland iyo kuwa dawladda ee hogaaminaysa howlgalladaasi ayaa shaaca ka qaaday in deegaano dhowr ah ay gacanta kaga dhigeen ururka al-shabaab kuwaasi oo sanadii ugu dambeeyay ay gacanta ku hayeen ciidamada ayaa dhanka kale waxa ay soo bandhigeen maleeshiyaad aad u badan oo ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasi oo ay ku laayeen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanada ka tirsan gobolka Jubbada Hoose deegaanada saraakiishu ay sheegeen in ay gacanta kaga dhigeen ururka al-shabaab ayaana waxa kamid ah Kooya Yaaq Dabayl iyo waliba deegaanka Qudus oo ah deegaan aad u ballaaran ururka al-shabaabna ay muddo badan xukumayeen saraakiisha ciidamada daraawiishta iyo kuwa dawladda oo iskarabsanaya ayaana sheegay in howlgalladani ay sii socon doonaan tan iyo inta deegaanada Jubbaland guud ahaan ay ciidamadu gacanta kaga dhigahayaan dhanka kale magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socda shir u dhaxeeya culimo u diinka Soomaaliyeed oo ka kala yimid dunida daafaheeda iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya shirkan ayaana lagu cadeynayaa ajandaha iyo waliba arrimaha diintu ay ka aaminsan tahay ururka al-shabaab iyo sida diinta islaamku ay u aragto falalka ay ka sameynayaan gudaha dalka Soomaaliya culimo waaweyn oo uu ka mid yahay Sheekh Usuuli ayaana ka hadlay arrintaasi iyagoo tilmaamay ficilada kooxahani ay ku dhaqaaqeen iyo waliba waxyaabaha ay sameynayaan in uu xataa ka fog yahay khawaarijnimo isla markaana uu yahay in lala dagaalamo dagaalkana uu yahay dagaal jihaad ah oo cidii ku dhimata ay janno galayso Sheekh Usuuli iyo waliba Sheekh Maxamed Ibrahim ayaa si weyn u xusay arrintaasi iyadoo culimada kale Soomaaliyeed ee meeshaas ka soo qayb gashana ay si weyn ugu taageereen hadalka culimada waaweyn ee ka hadlay arrintaasi waxayna tilmaameen in kooxan khawaarijta loo baahan yahay in culimada Soomaaliyeed ay qayb ka noqoto dagaalkooda si looga sifeeyo fikirkan foolxun ee markaasi ay u dhiibeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee markaasi isqarxinaya ee qarxinaya hooyooyinka ciyaalka iyo maantida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaana shirkan uga gol lahaa in taageero badan lagu helo isla markaana shacabka Soomaaliyeed loo kala cadeeyo dawladda iyo waliba kooxan khawaarijta ee dhibaatada xoogan ku haya shacabka Soomaaliyeed shacab badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay aaminsan yihiin in kooxahani ay xumbaarsan yihiin diin ayna yihiin mujaahidiin madaxweynaha ayaana uga gol lahaa in shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Soomaaliya iyo waliba dibadiisaba in loo cadeeyo kooxan iyo xukunkooda waxa uu yahay cidii taageertana aysan ahayn qof markaasi ku taagan dariiqa toosan ee muslimnimada culimada ayaana tilmaameen kooxahani iyo waxa ay ku sifaysan yihiin iyagoo waliba ka fogeeyay magaca khawaarijta isla markaana sheegay in ay ka sii fog yihiin magacan khawaarijta oo khawaarijtu ayba ka dhaweyd markii loo eego ficiladii khawaarijtu ay sameeyeen xilligii saxaabada iyo xilligan oo hadda la taagan yahay ficilada ururka al-shabaab ay ka sameynayaan gudaha dalka Soomaaliya arintani ayaana u muuqata mid dawladdu ay ku heli doonto taageero xoogan oo caalami ah iyo waliba taageero Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed ay israacin doonto iyagoo markaasi laga filahayo waliba deegaanada ay ku sugan yihiin in lala jahaadi doono maadaama culimadu ay sheegeen cidii la dagaalanta oo ku dhimata dagaalka ururka al-shabaab lagu jiro in uu la mid yahay qof ku dhintay jihaad isla markaana uu qofkaasi jihaaday daawadayaal qodobadaasi ayaa barnaamijkeena ugu dambeeyay tan iyo mid ka xiga intaan ku kulmayno waxaan idinka tegayaa amaano Allah